mahad waxaa iskale allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey maanta inaan si nabad ah ku soo gaarno caasimadda kumeel gaarka ah ee dowladda Jubbaland. dabcan waxaa aad la socotaan in shirkii ugu dambeeyey madasha golaha wadatashiga qaranka lagu go'aamiyey in guddi uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha. guddigaas oo ujeedadiisu ahayd inuu soo qiimeeyo xaaladda deegaan doorashada labaad ee dowladda Jubbaland Garbaharey. waxaa maanta halkan aan ku joognaa anigoo guddoomiyey ah iyo guddoomiye ku-xigeenka maxamed cawil oo iga fadhiya dhinaca bidixda, xoghayntii guddiga maxamed daahir oo iga fadhiya, laba xubnood oo kaleeto oo siid guddiga maamulka doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Jubbaland, laba xubnood oo ka tirsan Axmed Ibraahim iyo Shuke. intaas ayaan maanta ku soo gaarnay. waa wafdi hordhaca oo 3 qofood oo guddiga ka mid ah maalin aan ku jiro. guddiga wuxuu ka koobnaa 7 xubnood, 5 hadda joogta maahan, 2 xubnood oo kale ayaa naga maqan. waxayna nagu soo biiri doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo beritool sidaan ku rajo qabno. maanta waxaan uga mahad celinaynaa dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland madaxdeedii inay si sharaf ah noogu soo dhaweeyeen magaalada, iyo guddigii doorashooyinka iyo wasiiro howlwadaano kaleeto. insha allahu tacaala waqtigu hordhaca weeye, shaqadiisa ma bilaaban karaa soo kala maqan. labada xubnood oo maqan markay kusoo biirto beritoole ayuu wuxuu geli doonaa jadwalkiisa shaqo. waxaan la kulmi doonaa haddii ilaahay yidhaaho oo si gaar ah madaxweynaha oo aan maaragtay warbixintiisa iyo taladiisa aan dhegeysan doonaa sida xalka arrinta uu noqon karo. sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo danaynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaaladan jooga laftooda. sida ku cad wareegtada lagu magacaabay guddigan 3 shaqo ayaa u ah waajibaadkiisa. waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada. arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin. tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyaasha doorashada ee deegaan doorashadaas. insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed markaan hawshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin. inta ka horeyso hawsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas. wixii meel kasta lagala kulmana hal mar lama soo dayn doono. waxaan ka hadli doonaa kaliya warbixin oo aan inta soo saarno aan kula noqonno muxuu ahaa mas-uuliyiintii noo soo dhiibtay. markaas ayayna waxay go-aan ku qaadan doonaan warbixinta iyo tala soo jeedinta guddiga marka uu hawshiisa soo dhammaado. sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubbaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kaleeto aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino, waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbaharey. halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta, oo qiimeyn doona siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorasho in lagu qabto, iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ay ka qabaan doorashada.